بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo jirnay kitaabkii buluuq ulmaraam min adilati alaxkaam ee uu qoray alxaafid ibnu xajar casqalaani raxmatullaahi tacaala calayhi. isagii ayaan halkii kasii wadayna. wuxuu ihi sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi, kitaabul acimati. acimadii jamcu dacaamin weeye, dacaam oo mufrada acimo lagu jamciyey. marka hadda acima waxaa loo jeedaa xayawaanka noolaha in la cuno hilibkiisa uu bannaan yahay iyo midka uun banaanayn baa lagaga hadlayaa, ee bariis iyo baastiya lagagama hadlayo, kuwa dee marnaba xaaraan ma noqda. can abi hurayrata radia allaahu canhu, abi hureyre waxaa laga wariyey can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yihi suubanu, kullu dii naabin mici mid u saaxiiba kulligii oo min asibaaci dugaaga kamid a, fa akluhu cunidiisu xaraamun wey. rawaahu muslimun baa xadiidka wariyey. sibaac yaani duurjoogta wixii mici uu ku coleytamo sida libaaxa iyo shabeelka iyo oo mici uu wax ku dila leh, cunidiisu xaaraan weeye buuri nabigu. rawaahu muslimun baa xadiidka wariyey. wa akhrajahu wuu soo saaray muslim, faacilka ka dhig. wa akhraja muslim hu xadiidka min xadiidi ibni cabaas, kaa hore abu hureyr u ahaaye, min xadiidi ibni cabaas. ibni cabaas xadiidkiisii wuxuu kasoo saaray bilafdi nahaa ayuu kusoo saaray. masalan wasaada wuxuuna ziyaadiyey markuu intaa hore yidhi oo uu yihi nahaa, nabigu wuxuu nahiyey can kulli dii naabin min asibaaci. markuu yihi wasaada wuxuu ziyaadiyey wa kulli dii mikhlabin, mid u saaxiiba mikhlab oo min adayri shimbiraha. mikhlab waxa weeye masalan shimbiraha ayaa mikhlab leh iyo dugaaga naftiisu. meesha bini aadamka cidiyaha aan ka dhahno, cidiyahaas waxaa la yidhaahdaa shimbiraha iyo dugaaga kale waxaa la yidhaahdaa mikhlab ayaa la yidhahda. bini aadamka waxaa la odhanayaa yani dhufur, yani af soomaaliga cidi. ama xagga shimbiraha iyo dugaaga kale, libaaxa oo kale iyo kulliba waxaa la odhanaya mikhlab yani ayaa la odhanaya. marka waa kulli dii mikhlabin min adayri, mid yacna leh cidi uu ku coleytamo wax ku dilo oo shimbiraha kamida ayuu nebigu nahiyey in la cuno. maxaan ka qaadanaynaa xadiidkan? wuxuu daliil u yahay madhabka imaamu shaafici iyo abi xaniifa, axmed bin xambal iyo daawuud iyo jumhuurulculamaa oo odhanaya yacno mid kastoo cidi uu ku coleytamo leh oo duurjoogta ah ama cidi uu ku coleytamo leh, hilibkiisu waa xaaraan. culimadaas ayuu xadiidkani daliil u yahay. imaamu maalik wuxuu qabaa waa karaaha ee xaaraan ma aha ayuu isagu yani ayuu qabaa oo wuxuu daliishanayaa laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxaraman, aayaddaas yani ayuu daliishanaya. laakiin axaadiistan bay daliishanayaan shaaficiyada iyo culimada kale. aayaddaana yani waxay dhaheen markaa iyadii aayaddu soo degeysay, dee intaa aayaddu sheegtay baa xaaraam ahaa, yani dee tanna markaa kabacdi ayay timid oo nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam. wacan jaabir radia allaahu canhu, jaabir waxaa laga wariyey qaala inuu yihi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nabigu wuxuu reebay, wuxuu nahiyey yowma khaybara can luxuumi lxumuri, dameeraha hilibkooda alahliyati ee ahliga ee dadku ay dhaqdaan. yani xumurulwaxshi iyo xumurulahli baa kala jira. ahli waa dameeraha inagu aan dhaqano, yani waxshina waa dameer farowga oo duurka ku jira. waadina nabigu wuxuu idnay fii luxuumi lkhayli, fardaha hilibkooda. mutafaqun calayhi, xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyay. wa fii lafdin lilbukhaariyi warakhasa, nabigu wuxuu ruqseeyey meesha uu yihi waadina fii luxuumi lkhayli, waxaa ku qoran lafdi oo bukhaari uu leeyahay warakhasa, uu ruqseeyey yani ayaa ku qoran. ayib xadiidkani muxuu ina tusinayaa dameeraha hilibkooda inuu xaaraam yahay ama fardaha inuu xaaraam ahayn. laakiin culimadu arrintaa iskuma raacin fardaha hilibkooda, way isku khilaafeen hilibka fardaha inuu
bannaan yahay in la cuno iyo in kale. madhabu imaamu shaafici iyo jumhuuru salaf iyo khalaf waxay qabaan mubaax inuu yahay, wax karaaha aan ayna ahayn. koox ka mid a culimada sida cabdullaahi bin cabaas oo kale iyo xakam, imaamu maalik iyo abu xaniifa waa karaaha ayay yidhaahdeen, in la cuno waa karaaho. abu xaniifa wuxuu yidhi wuu ku dambaabaya hadduu cuno ruuxii faras hilibkii cuna, laakiin la odhan maayo waa xaraam, la odhan maayo. waxayna daliishadeen qolada odhanaysa yacni xalaal ma aha hilibka farasku aayadda qur-aanka ee suuratu naxli, waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina, yacni fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha litarkabuuha inaad fuushaan, waziina iyo qurux. marka ilaahay cunid ma sheegin, intifaaca lagu intifaacayo fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha aayaddu waxay sheegtay litarkabuuha, yani in rukuub iyo waziina in lagu xaragoodo qurux, labadaasaa la sheegay, cunid lama sheegin ayay yidhaahdeen culimada odhanaysa yani xaaraam weeye odhanaysa. ayib marka jumhuurtu maxay daliishadeen axaadiidtan, xadiidkan hadda aan sheegayna muslim uu wariyey iyo keyrkood yani oo ku cad yani inay bannaan tahay ku cad. wax nahyi oo kusoo aroorayna ma jiro, oo faraska hilibkiisa yaan la cunin odhanayana ma jiro. yacni wax cadaynaya wuu jiraa oo kan hadda aan dul taaganaha kamid inuu xalaal yahay hilibkiisu, laakiin wax nahyinaya kuma soo aroorin, wax nahyi ah xadiis oo sugan oo nahyi. ama aayadda jumhuurulculamaa waxay kaga jawaabeen, aayaddu waxay sheegtay rukuubka iyo ziinada, labada ay sheegtay ma tusinayo manaaficdu inay labadan un ku kooban tahay, ee waxa labadan loo sheegay yani waxa looga qasta ayaa labadan u badan, gaar ahaan fardaha oo waxay la mid taas yani haalibka unbaa la cabiraya. ayib oo waxay la mid tahay maalan aayadda qur-aanka ilaahay uu yihi xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir, waxaa la idinka xarimay baktiga, dhiigga, walaxmu lkhinziiri iyo doofaarka hilibkiisi. marka doofaarka hilibkiisii baa la sheegay, maxaa yeelay waxa ugu weynee doofaar looga qasto waa hilibkiisa. laakiin muslimiintu yani xaydhiisa iyo subagiisa iyo dhiiggiisa iyo ajzaadiisa oo dhan inay xaaraam tahay waa ijmaac, aayadduna ma sheegin, aayaddu hilib uma sheegtay, walaxmu lkhinziir. limaada? de isaga haaliba waxa loo qasto. tanna waa saas oo kale, yani litarkabuuha waziina, yani fardaha iyo wixii lamida sida haalibka ah ayaa in la fuulo iyo in lagu xaragoodo ayaa looga qastaa, oo aayaddaas yani isku mid yihiin. wacan ibni abi awfa waxaa laga wariyey qaala inuu yihi ghazawnaa waan duulnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama 7 ghazawaatin 7 duulaan. ibn abi awfa ayaan nabiga ayaan la duulay buuri, naakulu xaalo aan cunayno aljaraada ayaxa ayaan cunaynay waxaa la yidhaha. muttafaqun calayhi, xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey. xadiidkan marka muxuu ina tusinayaa ayaxu inuu mubaax yahay in la cuno. ayib muslimiintu way ku ijmaaceen ayaxu inuu bannaan yahay in la cuno, laakiin kayfiyadii ayaa maaragtay tafsiilkii, guud ahaan inuu bannaan yahay waa ijmaac, laakiin tafsiilkii hoose la isku khilaaf. مثلا إمام الشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل صدق إمام iyo jamaahiirul culamaa waxay qabaan suu doonaba ha ku dhintee, ama ha la gowraco ama yaan la gowracin, qof muslim ha ugaadhsado, majuusi oo dabcaabud ha ugaadhsado, ha iska dhinto, ha iska baktiya hadduu doono, qeyb kamida ha laga gooyo yaan laga goynin, waa xalaal bay yidhaahdeen. ama imaamu maalik sida mashhuurka ah iyo riwaayo oo axmed binu xambal waxay leeyihiin xalaal ma aha ilaa inuu sabab u dhinto mooyeen, oo maalan bar kamida laga gooyo saas oo kale, ama dab lagu tuuro isagoo nool maalan, ama saas oo kale, ama hadduu xadfa anfihi iska dhinto uun, ama maaragtay saas oo kale xalaal ma aha ayay leeyihiin. marka tafsiilkaa hoose ayay sidaa culimadu isugu khilaafeen. wacan anasin waxaa laga wariyey fii qisati larnabi, bakaylihii qisadiisii, yani qisatu larnab, anas, yani qisadaasina waxay ahayd anas waxay ku taallaa qisadaasi
sheekhu muuna sheegin laakiin dee xadiidkay ku taallaa uu inta kasoo qaatay sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi. Anas baa wuxuu yidhi waxaanu aragnay meel la yidhaha maru dahraan anagoo joogna ayaan aragnay bakayle. bakaylihii marka wuu cararay, dadkii way daaleen, marka wuxuu yidhi anaa soo qabtay bakaylihii abi dalxa ayaan deedna u keenay sidan soo socoto. marka abi dalxa markuu u keenayna maxaa dhacay waaka intii dambe. marka wacan anasin marka waxaa ka maqan inuu isagu soo qabtay oo dadku markii hore intay eryadeen gaari waayeen isagu soo qabtay. wacan anasin fii qisati larnabi, bakaylihii qisadiisii anas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi fadabaxaha abu dalxa ayaa gowracay markaan u keenay. fabacatha wuu diray abu dalxa biwarikihaa, yani warigeeda bawdyadeeda sinteeda wuxuu u diray lugtaas ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, nabigu u diray. faqabilahu nabigu wuu aqbalay. muttafaqun caleyh. bakayle lugti warigi meeshaa sinta nabigu wuu aqbalay. inta badan soomaalidu ma ugaadhsato bakaylaha, laakiin xalaal weeyaan. meelo iska horortaa sagaarada way ugaadhsadaan, laakiin bakaylaha inta badan ma ugaadhsadaan. marka meeshan maxaa laga qaadanayaa bakaylaha cunidiisu xalaal inay tahay ayaa laga qaadanayaa xadiidkan. allahuma salli calaa muxamed. culimadoo dhan arrintaa way isku raacsan yihiin ilaa cabdullaahi binu camar binu caas iyo ibnu abi leyla, labadaa sheekh baa waxay yidhaahdeen waa karaaho, laakiin inta kale waa karaahi tamayna odhanin. jumhuurtu marka xadiidkan bay daliishanayaan iyo wax nahyioo kusoo arooray bakaylana ma jiro. xadiidkana waa kaasoo dee nabigu wuu aqbalay calayhi salaatu wasalaam. wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal, cabdullaahi bin cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nabigu wuxuu nahiyey can qatli 4 afar dilkood oo min addawaabi waxyaabaha oo dhulka dushooda ku socda. annamlati buu nahiyey can qatli namlati, quraanjada in la dilo. wanaxlati shinida in la dilo. walhudhud shimbirkaa hudhudka la yidhaha. wasurad shimbirkaa oo suradka la yidhaaha. surad yani waa shimbir oo cusfuurka ka yara weyn in yar, shimbirka cusfuurka la yidhaha oo madaxiisu yara weyn yahay iyo lugihiisu. waxay leeyihiin markay tilmaamayaan niskii waa cadiin, nisna waa madow. madow iyo cadiin ba isugu jira. saas yani ayay ku tilmaamayaan. marka haddaad doonaysa inaad aragto meesha googlaha sidaa ugu qor magaciisa surad markaa kuusoo baxay. rawaahu axmed baa xadiidka wariyay, waa abu daawuud wasaxaxahu ibni xibaan ayaa saxiix yeelay. marka quraanjo oo dhan in la dila maxaaraan baa qaar wax dhiba mayn jirin oo ku qaniinaya. sheekha la yidhaha khataabi, culimada waaweyn shaaficiyada kamida, wuxuu yidhi quraanjada waxaa looga jeedaa nooc kamid oo khaasa oo quraanjada yaan la dilin la yidhi. nooc waaweyn oo ma aragtay luga dheer leh oo aan dadka dhibin, kaasaa loo jeedaa buuri. sheekh kaloo bakawi la yidhahdo shaaficiyada kamidana isaguna saasuu yidhi. midda yaryar dhudhacasada inagu aan dhahno darada la yidhaah, taa iyadu looma jeeday yidhaahdeen. culimada shaaficiyada qaarkood way caddeeyeen intaas in la dila ay bannaan tahay. imaam maalik yacnoo dilkeedu waa karaaha ayuu yidhi, ilaa inay ku dhibto mooyeen oo si kalood iskaga daafacdo inaad disha mooyeen ayna jirin mooyeen isagu qabaa. ayib allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. wacan ibni abi camaar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qultu waxaan idhi buu ihi lijaabir waxaan ku idhi addabucu bahalka oo dabuca la yidhaah, inaga af soomaaliga dhurwaa ama waraabe labada magacba waan dhahnaa. dabuc saydun ma ugaadh baa hiya, saydun hiya ugaadh miyaa oo la cunaya hilibkiisa. qaala wuxuu ihi nacam waa ugaadh weeyaan. jaabir baa odhanaya. qultu waxaan idhi qaalahu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ma nabigaa yidhi? qaala nacam waa nabigaa yidhi. rawaahu axmed baa wariyey, walarbacatu afartiina way wariyeen, abu daawuud, tirmidi iyo nasai iyo ibnu maaja. wasaxaxahu albukhaariyu baa xadiidkan saxiix yeelay iyo wabnu xibaan
ayaa saxiix yeelo ku xukumay yacno inuu saxiix yahay. ayib culimadu way isku khilaafeen waraabaha hilibkiisa, way isku khilaafeen in la cuno ma xalaalba mise ma xaaraanba. culimada banayse waxaa kamid a imaamu shaafici iyo axmed bin xambal yani ayaa kamida oo maaragtay xadiidkan iyo iyay qabsadeen yani inuu iska banaan yahay. ayib imaamu shaafici wuxuu yihi markuu baxhi uu ka jeedinayay waraabaha, maa zaala annaasu yaakuluunaha wa yabiicuunaha bayna asafaa walmarwa min gayri nakiirin. yani dadku ilaa hadda buu leeyahay shaafici mayna ka zuulin ilaa xilli horeba inay cunayaan oo iibinayaan bayna safaa walmarwa, safiya marwa dhexdooda la ordo inay ku iibinayaan hilibka waraabaha ay cunayaan mayna ka zuulin min gayri nakiirin, iyadoo cid inkiraysaa ayna jirin ayuu yihi imaamu shaafici. midda kale wuxuu yihi carabi wax wanaagsan bay u aragtaa, tastadiibuhu wa tamdaxuhu. waraabaha carab baa la yidhi, hadda soomaali lama odhan, hadda soomaali waraaba nooc kaloo inoo sawiran yahay no waraaba hilibkii yani soomaaligu yani waxa weeye ku adagtaa. laakiin waxaa lu yihi waliana alcaraba tastadiibuhu wa tamdaxuhu, carabi way ammaantaa. ayib carab hadday ammaanto yani wax oo qolo la wanaagsan qolo kale wuu la xumaan karaa. marka laakiin wixii culimada waxay leeyihiin wixii nas loo waayo waxaa la eegayaa carabta waxay agtooda tastadiibu inuu yahay in kale ayaa wixii nas markaa loo waayo. marka naskan waa la hayaa, lama inkirin, waa la cuni jiray. waliana alcaraba tastadiibuhu wa tamdaxuhu. marka xadiid nahyi baa kusoo arooray. marka wuxuu yihi imaamu shaafici xadiidkaasi hadduu asaxo maxmuulun cala tanziih, xadiidka waxaa lagu xambaarayaa yani tanziih karaaha yani waa laga fiican yahay. ayib taa waa imaamu shaafici. abu xaniifa iyo imaamu maalik labadaa sheekh waxay dhaheen xaraam, bahalkaas waraabaha la yidhaha hilibkiisu waa xaraam. maxaa yeelay dhaheen nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey bahalka la yidhaha waraabaha hilibkiisa, kaase wuxuu ku jawaabay waman yaakulu adabc, oo yaa cuni waraaba hilibkii yaa cuni, saasuu ku jawaabay. waa xaraam iyo waa xalaal midna ma odhan. wuxuu yihi waman yaakulu adabc, oo yaa cunaya waraaba yaa cunaya. ayib midda kale bay leeyihiin culimadaasi dee mici buu leeyahay, nahyi guud baa soo arooray can kulli dii naabin min asibaac, oo kii aan soo marnay oo mici buu leeyahay. marka de isaguna kuwaasuu kamid yahay, waraaba wey dugaaguu kamid yahay, habar dugaag duurjoogtuu kamid yahay, micina buu leeyahay. ayib marka qoladaasina halkaas ayay maaragtay. laakiin xadiidka waman yaakulu adabc waxay leeyihiin waa matruuk. midda kale dabca waxaa la yidhi yani mici maleh, mici oo xoogle maleh. waxaa la sheegay qaarkood ay sheegeen ilkaheed oo dhan waa laf keliyo isku taalla, sida ilkahan kale joogjoogo oo ilig iyo laba iyo saddex iyo waraabaha duurjoogta kale ay leedahay, isaga sidaa maaha. waa wax isku wada yaalo oo sidii yani hal loox oo kale aada moodo saa isugu wada yaalo, hal ilig oo hal loox ku yaalo oo kale ah, laf oo kale ah, hal laf oo isku wada taal. ayib marka saa darteed dii naabin markii la yidhi dee mici gooni u taagan male, marka saa darteed ma soo gelayo yani ayay yidhaahda. almuhim khilaafkaasaa ka jira imaamu shaafici agtiisa, laakiin xalaal buu ka yahay. ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما waxaa laga wariyey cabdاللahi بن cمر أنه سuئila waxaa la weydiiyey can الqunfudi, bahalka qunfudka la yidhaah. qunfudku waa xayawaan oo maaragtay wadankeena kuma arag anigu, laakiin laga yaabo inuu joogo, allahu aclam. masr iyo waxaa lagu sheegaa sham yaa lagu sheegaa. waa xayawaan gariiba, hadda halkaa googlaha ku qorta sawirkiisa waa arkaysaa. marka qunfudka ayaa la weydiiyey cabdاللahi بن cمر faqaala wuxuu yihi qul waxaa tidhaa faqaala wuxuu yihi aayadan buu akhriyay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calىa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu. aayaddaas ayuu akhriyay. yani waxay ka dhigan tahay aayadda kumuu jiro qunfudku,
كل هدون آيات كتيرين نواس كحلال ساسي كده يعني. فقال شيخ عنده نندأه أو أضيئه أو مركي عبد الله بن عمر الويدين يميش فديه وحجري سمعت أبا هريرة مقلي يقول إستقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكتيس أيار الوشيغي بالك قنفت كالليلة فقال النبي وحجري خبيثة من الخبائث خبيثة وحرام من الخبائث حرام تكمدها خبيثة يعني قرن ده حرام وي يعني أيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تاسان مغليبور أخرجه حديث كان أحمد باوري وأبو داود وإسناده ضعيف. مرقى حديث كالشيخ حقوسي قرن عبد الله بن عمر وحكو جوابي حدو النبي ويري واسدا ويري أيو يري مرقى حدي لكن ما ماشي وجرته حدينا السقنين ماشي وجرته يعني مرقى حديث كيني محل وإسناده ضعيف إسناد كيسو وامد وضعيف وتبار ترم بالير. طيب اللهم صل على محمد. مركا حكم كيسو محون نقول يا علماء محي كيدادين إمام مالك يا أبو حنيفة قنفت كوحي يدادين وكراهه من لعنه لبكيسة. إمام الشافعي يا الليث يا أبو ثور ويعني وين رخصيين لعنه ويسكبنا تاي يدادين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحال قوري قال إنه يجري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو النهي عن الجلالة حيوان كالجلالة الليلة جلالة وفعالة من أبنية المبالغة حيوان كماركتي فضلات كهنا واحد فضلات كه سحرة حيوان كهنا أي وحا الليلة هذا جلالة أي الليلة هذا. طيب مركا لكن هذه يعني جلكيد وصوره أما عانه هذا أما لديتكيد وهذا صوره يعني. عن الجلالة وينبي النهي جلالة دي يعني إن لعنه حيوان كأو سحرة عنه مثلا كسوق هذا دون الدجاج هالنقطة هذا دون حيوانات كردم نقون كرا جيل آدي لا كله نقون كرا مركا جلالة ده حيوان هلب كيس لعنه دينا lagu arkay isagoo waxa cunayo deedna ur uu ka soo uray anil jalaalati ayuu nahiyay in la cuno hilibkeeda iyo wa albaaniha caanaheeda labadaba akhrajahu al arba'atu afartiba soo saartay ila an-nasaa'i mooye abu daawud tirmidhi an-nasaa'i way ibn maajah marka nasaa'i kuma jiro wa hasanahu at-tirmidhi ayaa xadiidka xasan yaanaya ku xukumay. طيب marka waxa miciyaarka ah lagu qiyaasayo waxa weeyaan xagga urkeeda iyo qurunnimada baa lagu qiyaasaya marka hadii ur iyo qurunnimo lagu arko xaraam bay noqonaysaa. اللهم صل على محمد marka hilibkeed marka xaraam buu noqonayaa qolayna waxay yiraahdaan ma waa karaaho waxay la mid tahay neef la gowracay hilibkiisu neefta la gowracay hilibkiisu marka la gowracay dii waa caadi markaas adeena hilibkii wuu qurmay ma xaraam buu noqonayaa ma xaraam ma waa qurun xaraam ma noqonayo marka kaasoo kale uu weeyo marka laakiin waa karaaho waxa qurmay bacteria ku dhalatay inaad cunto marka saasoo kale noqonayaa bay qolooyin yiraahdeen waa karaaho yaano xaraam ma laakiin hadii la alfiyo oo cunto wanaagsan la siiyo deedna wixii uu ka zuulo urkii iyo qurunkii uu ka zuulo marka caadi bay noqonaysaa ilaa cilladii meeshii marka way ka baxday. طيب وعن أبي قتادة وحا لغا وري رضي الله عنه في قصة الحمار حمار الوحشي في قصة الحمار الوحشي حمار الوحشي قصديس يعني حمار الوحشي يعني وحوها أبي قتادة يسوى صحابة النبي الله الصعودة intooda kalena ay muhrim yihiin kuwa xaj iyo umro midkooda uu xiran yahay isaga mooyeen ayaa waxa la arkay ximaar wahshi marka qofkuna markuu muhrim yahay ma banaano ugaadha inuu ugaadhsado marka intooda kale ileen uu og yahay wuxuu arkay iyagoo eegma kaliya isagu marka muhrim ma aha markaasuu deedna faraskiisu ku dhacayo ximaar wahshi ayuu soo dilay wuxuu sheegayaa ul inta ka dhacday inuu yiri si oo deedna ay diideen inay caawiyaan
ileen ma banaano inay dilaan iyo inay qof dilaya caawiyaan midna ma banaano kol hadduu xaj ama cumro u xidhan yahay. almuhim ximaar waxshigii uu deedna yuu soo dilay. taas qisadiisa marka. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي حمار الوحشي قصديسة وحا لغوريه إنو يجري فأكل منه النبي فأكل وحاعنا منه حمار الوحشي النبي باعني صلى الله عليه وسلم متفق عليه. حديث بخاري مسلم باوريه. حديث كان مركا وحين تسنى يا حمار الوحشي هيلب كيسين لعنين بنانته وإجماع مركا ومضوا اسكم خلاف كاس خلاف شاذة yaa ku sugan haddii maaragtay haddii la calfiyo oo kale inta lasoo qabto khilaafshaada odhanaya marka dameeraha caadiga oo kale noqonaya. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وحا laga wariyay قالت inay tiri naxarna yani waxaan dhuun dhownay naxri geela ayaa loo adeegsaday wixii lamid oo halka dhuunta midi laba afle jug inta laga siiyo jak jak labada dhinaceedna loogu gooyo naxri iyo dhabxiga waxa weeye insaas yaana la yiraahdo ariga iyo looda iyo wixii lamid ah. qaalad waxay tiri naxarna waxaan dhuun dhownay yani waxaan gowracnay in bay ujeedaa ma filaya faraska ilaan isagu sida geel oo kale ma aha ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam farasan ayaan gowracnay ee ka dhiganta faras baan gowracnay xilligii nabiga faakalnaahu waan cunnay muttafaqun alayhi. xadiidka bukhaari muslim baa sida xadiidkii hore soo marnay xadiidkan wuxuu ina tusinayaa yani fardaha hilibkooda inuu xalaal yahay ayuu ina tusinayaa. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وحال قوري عبد الله بن عباس قال إنه يري وكلا الضب وحال عن من سعقلي بهشا ضبقا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى مائدة ديسي مائدة ماشي انتظر لغوعنا يعني مائدة ديسي أيا لغوعنا يعني سحنكم ويني وحول بالصاري مائدة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها اللغونا نبي معون لكن على مائدة رسول الله متفق عليه. حديث كبخاري ومسلم باوري مركا وإجماع بهاش ما سعيليد إني حلال تهي لكن وكراه اللهم صل على كحمي وإجماع إن لعنو من سعيليد إني بنان تهي وحلال كرهنا معها إلا أبي حنيفة وما ركت أصحاب دي سقار كمدا وحي قواني كراهتها. اللهم صل على قولوا إن وحا لغا وريي إن يراهدين وحرام لكن وضعيف. وده إجماع دليلك يا كحوك بدن. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عثمان وحا لغا وريي القرشي قريش لون نسبي قبيل كيس أن طبيبا اختار أيا سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبنها عن الدفدع بالك الرها ليلة بيها كنور أيو النبي ويدي كاسو يجعلها ويالي في دواء بالك ورن الرها ليلة هذا مرمر بان دوده يعني يا ساسوك قدرة فنهى عن قتلها النبي وحو كان هي إن للدلو رها إن للدلو. أخرجه أحمد بحديث كصوصار وصححه الحاكم حاكم له صحيح يالي. حديث كان يوحي الدليل وياهي رها إن للدلو إنه حرام تهي إن لعنانا إنه حرام تهي وأين سوق لأن حيوانك بيها كجرة حيوانك بيها كجرة إن لعنا أي بنان تهي إنه نسوق كجرين أي حديث كان لك قادنا يا والله سبحانه وتعالى أعلم.